iyadoo gudaha magaalada Boorama ay dhawaan ka da'een roobab waaweyn oo dabaylo wata kuwaasi oo sameeyay daadad la xal oo waxyeello u geystay qaar ka mid ah guryaha dadka danyartii ay degan yihiin ee bariga magaalada Boorama ayaa waxa maanta cabasho xoogan daadashaasi ka muujiyay haweenka danyarta kala duwan ee ku dhaqan bariga magaalada Boorama kuwaasi oo maayirka degmada Boorama iyo xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay in si degdeg ah wax looga qabto saameyn ba'an ay ku yeesheen daadashaasi iyagoona sheegay guud ahaanba ay ka barakiciyeen guryihii ay ka deganayeen magaalada Boorama waxa way dhibaatada taala anaga waxa weeyaan anagoo danyara oo awlaadayadii madrasad iyo maxayda iskuulan midna u haynin oo halka habeena ku qadayna habeena ku cunayna ayaa haddana daad noo dheer yahay 6 sanadood ayaanu 6 bilood ee roobkaasi da'ayo waanu qaxnaa habeen bareer baan u hoyanaa anagoo habeen bareer u hoyanayna iyo dhibaato kalena noo dheertoo danyarnimo ihi marka waxa weeyaan dawladda Muuse Biixi mas'uulka ka yahay waxaan ka codsanaynaa in hoos lanoo eego dadka lanaga hagaajiyo ayaan ka codsanaynaa waxa weeyaan mas'uulka Boorame waxaan ka codsanaynaa in hoos lanoo eego dooxa lanaga dhex qaado iyaanu ku cabanaynaa inta marka laga tago nin walba baahidiisu meel bay u taagan tahay anagu waxaan qoysas danyar oo meelahan iska degan kolka laakiin awal hore rajo ku nool baan waxa islaan wadanku u dhismi doona oo biyo isbedeli doona oo maxaan ku dhahay biyo ka bayri doona laakiin 10 sano rajada aan ku noolayn waxba kama jiraan meelaha qaar oo imika halkaas oo kala hadaad aragtaan nin la u doobiyo biyaha wala nagu soo furay naga waciyo biyan iskama wacin karna markii la needh waxa lagu iska waciyo idinku anaga oo iska wacinay markay taa tahay annaga tamarteedu waxay noqotay inaan u yeedhano dadka indhaha bulshada ah ee meel kasto ay wax ka jiraan wax ka duubaya ee ummadda iyo bulshada iyo dadka dayacan iyo umawra dadka oo dhan u dhaga fudud asha taajiriinta dadka qalada dhagaxa gala dadka dawladda haysta maayirka golayaasha dhexe golaha sare ilaa madaxweynaha waxaan leenahay hoos loo eego dadku way kala dhibaato badan laakiin sidee biyo badan baa wada halkan mara ay biyo laga sheekayn kara maaha ay waxaan ku biyo xoog la halkan ka soo dhaca ay waxaan ku iri aqaladaas uba rujinayaaba ay biyo laga sheekayn kara maaha waa biyo xoog badan aniga gabadhan dhankan iga xigta 5 habeen bay waxaan ku iri ay la gashaa ay daadkii baa qaaday ay waa dad danyara ay waa dad xoogsata waxaan ku iri dadka suuqa ay dharaartii aroortii u baxa weeyaan ee taga ay ummadda muslimiinta waxaan ugu baaqayaa inay la soo caawiyo ay oo amba jaga loo iibiyo amba maxay ahayd wala iskooga waa geeda boolada halka gaabiyanahay ee geedaha cambahaali waxa daad dushiga yimaado dusha maxay ahayd laga keenay maxay ahayd cishidreed waanu ka qaxna alaabteeda uu wada qaaday gebi laba suuli baan qatay labada suuli way iga dumeen waanu ka qaxno qaxooti caadi aanu nahay maxay ahayd qoyskalena uu ku maqayo maxay ahayd jaarkayga way ka qaxeen 10 ciyaal way ka qaxeen marka qaxooti caadi aanu sinay dawladdu maxay ahayd caawisan daadkaanu ka qaxayna dadkan ka qaxna dadkaas dusha naga yimaada marka inay dawladdu wax nooga qabataan doonayna noo gurmadan dawladda Soomaaliland inay noo gurmataan doonayna wax la cuno lama waa wax la xidhana lama laakiin walaal dadkaas dad taal yar baanu nahay dawladdu inay noo gurmataan doonayna caawiso dawladda Soomaaliland anigu waxaan ahay barakayaasha cabanaya ee ka cabanaya dadka muddo horena way qaaday gurigana way iga dumiyay maxaa marxuunkayga xanuunsanayna krisnimada uu ka qaaday xanuunkii maanta dhiig ku kacay buu ku dhintay oo lagu aaso gurigood dunsan gurigu qabcadan baa ka duntay kabacdi marka wiilkii la aasayna intii kale qaraabadii wixii baa guriga isugu geysay oo dhistay imikana biyahan halka socmee biyo aan wadaba lahayn oo jaga ayaa xoog dabada laga keenay awoodna waa la sheegto lagama neexinaya lagu yiri maalin kastana meeshaan deganahay labada dhanba ka yimaada meel xitaa ubadkaan kala baxo ma ay moogtay catabada dheer halka ku taala ayaa kala geerida markaan inta kor lagu qaado iyo halka laga bixiyaa marka dhibaatada dadkaasan ka cabanaa ee inay bulshada reesmana wax noo qabato amba dadka naga leexiso ama meel kale wada jisayna kartaa diyada